dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kaloo rabaa inaan u hambaliyeeyo wasaaradda warfaafinta runtii dibudhiskan iyo dayactirka ay ku samaysay gurigii ay ku lahayd magaalada Boosaaso. runtii waa wax kulligayna farxad gelinaya. dawladdu waxaa la rabaa inay example u noqoto private sectorska oo dawladdu ay noqoto meelaha lagu daydo, ama xagga ha noqoto xafiisadooda, ama xagga shaqada ha noqoto, ama xagga nidaamka ha noqoto. runtii dawladaha waxaa la rabaa ama dawladda ama sector kasta ama wasaarad walba in lagu daydo. waxaan kaloo rabaa inaan aad u bogaadiyo oo soo dhaweeyo barnaamijka isku tashiga ah. isku tashigu runtii waa wax weyn oo horumar lagu gaaro. haddii dadku isku tashadaan waxa waaye waxay xaqiijin karaan goolasha ay rabaan inay ayagu gaaraan. laakiin cid kale markaa ku tashatid way adagtahay saa u xaqiijiso meelaha aad hiigsanaysid. marka runtii wasaaradda warfaafinta iyo shirkadaha sida dhow ula shaqeeyo Somtel ka mid tahay oo hadda maareeyihii nagala joogo, wada shaqaynta dhow oo ka dhaxaysa iyo iskaalmaysiga iyo in dayactir lagu sameeyo iyadoo isku tashi ah hay'ad iyo cid kale aan lagu tashanayn. wasaaradda warfaafinta runtii waa wax kulligeen example noo ah oo aanu uga dayanayno. muhiimaddu ma aha badnaanta lacagta oo la hayo, laakiin muhiimaddu waa saa u manage garaysid. mar walba muhiimaddu waa saa u manage garaysid iyo siday kaaga go'an tahay inaad sectorka dawladda u matalayso in uu noqdo sector dhisan oo habaysan oo dayactirsan. marka wasaaradda mar labaad waa u hambaliyeynayaa, waa bogaadinayaa, iyo wasiirada kaloo saaxiibadayo ka soo qayb galay. marka mar labaad hambaliyaan leenahay. dhammaanteen waxaan rajaynaynaa dadaaladeenna in ilaahay noo barakeeyo, waddankeennana uu amni nooga dhigo. amnigu waa furaha maaragtay nolosha. macaamilu isticmaal adeegga idahab dhammaan baahiyaha ganacsiyada ku iibso lacag dirid ku shuba ribaad iyo internet iyo dhammaan wax kasta oo aad isticmaal lacageed uga baahato